dhowr boqol oo qoys oo kamid ah danyarta masaakiinta iyo waliba dadka shacabka ee ku nool degmada Dhabad oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa maanta dawladda Cumaan waxa ay soo gaarsiisay deeq raashin oo isugu jirta sokor, bariis, bur, saliid, timir iyo sidoo kale caleen si ay uga faa'iideystaan isla markaana afur ay ugu noqoto dadka danyarta ee ku nool degmada Dhabad oo ayagu maanta si haqab la'aan loo gaarsiiyay raashinka iyo waliba mucaawanaadka loogu talagalay dadkaas masaakiinta ee ku nool degmada Dhabad ka soo qoysaska iyo waliba dadka danyarta ee ku nool degmada Dhabad guud ahaantood waxa raashinkani sidoo kale uu gaaray dadka ku nool meelaha miyiga ah ayuu sidoo kale qoys walba uu qaadanayay laba caagadood oo saliid ah, haaf bur ah, haaf bariis ah, haaf sokor ah, kartoon timir iyo sidoo kale waxoogaa caleen ah oo iyadoo ah habkii iyo waliba wax qaybta loogu talagalay dadka danyarta ee ku nool degmada Dhabad oo maanta dawladda Cumaan raashinkan iyo waliba mucaawanaadkan ay soo gaarsiisay Sheekh Maxamed Daahir Guduud oo kamid ah culimada diinka degmada Dhabad isla markaana kamid ah dadkii loo soo wakiishay deeqdani ayaa ugu horeyntii telefishinka caalamiga Universal uga warbixiyay waxyaabaha ay ka koobnayd sidoo kale habka ay ugu qaybiyeen oo u gaarsiiyeen dadkani deeqdii loo soo wakiishay dawladda Cumaan ay ugu talagashay dadkani masaakiinta ku nool degmada Dhabad sida aad u jeedaan indhihiina hortooda waxaan joognaa degmada Dhabad oo ku taala waqooyiga gobolka Galgaduud waxaan halkan gaaray saldanada ama boqortooyada Cumaan oo loogu talagalay barnaamij la yiraahdo ifdaar usaayini dadka Soomaal Afrikooda oo ay soo bixiyeen boqorka iyo shacabka reer saldanada Cumaan ay soo bixiyeen dhammaan dadkii magaalada deganaa waa kuwaan sida kaga muuqata sawirka iyo kamarada aad ka arkaysaan raashinkii waa kan halkan odayaashii iyo haweenkii iyo dhalinyaradii iyo culimadii mas'uuliyiinta magaalada dhammaan dadkii waa ku sugan yahay sidaas raashinka maaragtay rabnaa ku bixi sidoo kale qaar kamid ah shacabka reer Dhabadeed oo ayagu maanta deeqdan la soo gaarsiiyay ayaa u mahadceliyay dawladda Cumaan oo iyadoo deeqdan soo gaarsiisay dadka reer Dhabadeed si afur iyo kaalmo ay uga dhigtaan dadka danyarta ee ku nool degmadaas Dhabad waxaan u mahadcelinaynaa maanta anagoo joogna magaalada Dhabadeed oo degmada Dhabadeed oo ku taala waqooyiga Galgaduud waxaana soo gaaray raashinka ay noo soo dhiibeen boqortooyada Cumaan Allah mahad leh waxaa kaloo ku mahadsan boqorka Cumaan oo noo soo gartay inuu noo keeno raashinkaas ku aadamay bisha Ramadaan ajar Allah ka siiyo على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkaas ka muuqdo insha Allah ta'ala waxa uu bixinaya cawmo ay ka katibid suldaanada Cumaan waan insha Allah ta'ala hadaan nahay degmada Dhabad waxaan ku mahadinaynaa sida wanaagsan ay u soo gaarsiiyeen hadda ka bacdina insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inay daahiriyaan oo ay dadka tawaalaysan waxay ku tari karaan mar walba soo diraan sida Ramadaan ka insha Allah ta'ala iyo martay loogu afuro si aan maxaa yeelay dadka dawladda oo aad u soo gaarsiisay malahan عوضنا تصوت معنا boqol waan ku mahadinaynaa insha Allah ta'ala Mahad Xasan Diini telefishinka caalamiga Universal degmada Dhabad